مقدشو سلام أهلها كرام نعم أحبها مقدشو سلام مقدشو سلام زاحت الركام عاشت انسجام زاحت الركام وعاشت انسجام شبابها بذل مقدشو فأشرق الأمل مقدشو شبابها بذل مقدشو فأشرق الأمل مقدشو مقدشو سلام أرضها سلام عيشها سلام أهلها سلام مقدشو سلام كل وناكسن داوديال halkan waa telefishinka dalsan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka hel hadiyada waa barnaamij su'aalo kala duwan aynu ku weydiinaa dhalinyarada maalmaha qiimaha badan ee bisha barakeysan ee Ramadaan aynu ku guda jirnaa dhalinyaradana su'aalaha kala duwan aynu halkan ku weydiinayno ay tahay su'aalo diini iyo kuwa cilmi iyo maadi intuba iyo su'aalo si cilmiyan iyo waliba aqliyan looga jawaab celin doona barnaamijka intuu soconayo gacal ayaa dhinaca kamarada inaga haya anigu waa Xasan Laki dhinaca su'aal diyaarintuna Ustaad Barre Sheekh Cabdullaahi Bangladesh subarsan ayaa hadiyada ku bixin doonta kuna soo dhawaada mar kale barnaamijka hel hadiyada waa tahay mar kale Ramadaan Kariim barnaamijka hel hadiyad su'aalaha kala duwan ee xisaab badnaa ayaan ku guda jirnaa iyo bahda aynu la kulmayno marka hore saaxiib magacaaga magacayga waa Cabdinuur Aadan Cilmi Cabdinuur ku soo dhaw barnaamijka waa dhawahay waagaag numberka koowaad ilaa numberka shanaad number ku tijaabi haddii bal aan dooqay fiiriyo lambarka shanaad aan fiirinaa haddii la min ag jawaabi karo waagaag numberka shanaad su'aasha ku xusan waxay leedahay waxaad sheegtaa magaca buurta ugu dheer ee ku taala Soomaaliya sheeg magaca buurta ugu dheer ee ku taala Soomaaliya haye jawaabtaas haddaan isku dayo oo Ilaahay uu waafajiyo waxaan is leeyahay waa buurta Goolis ama buuraha Goolis saddex mar ayaa fursad u haysataa marka koowaad ma aadan haleelin laba fursadood ayaa ku dhiman haye fursadaada labaad niyo taas ma haleeli karo ma isku dayi karo kastoo maskaxdeeda ku wareegsanaysa laakiin hadda maayo buurta ugu dheer ee Soomaaliya waa hal buur Goolis laakiin waa buuro silsilada ah waa ogahay buurta Afrika ugu dheer oo kale waxa waay Kilimanjaro kuwaas oo ahaya laakiin Soomaaliya ma taasaan rajeynayaa aad way igu wareegaysaa waagaag saaxiibada kale marka fursad u siinayna ka jawaabaan waa siin kartaa ma santahay ay saaxiib aad oo ma san soo dhaw waa tahay daawadayaal numberka shanaad ee barnaamijka ayuu daawaday qabsaday oo aan su'aal ku weydiinay su'aashaas oo ahayd waxaad sheegtaa buurta ugu dheer Soomaaliya balse muusan ka jawaab celin saaxiibada kale ayuu fursad u siiyay inay ka jawaabaan waagaag marka hore saaxiib soo dhaw magacaaga magacayga Cabdiwaxid waane Cabdiwaxid dhalinyarada magaalada Muqdisho yes Cabdiwaxid inta su'aasha koowaad aan weydiinay saaxiibka xagga ayaa ka soo jeedo dabcan waxa isleed su'aashii soo fakata isku day ka hor inta aad su'aal cusub dalban Soomaa waagaag su'aashana haddaad ka faa'iidaysato ayada ayaa hadiyad ku heli doontaa haddii aad ka faa'iidaysan weysana nambarkaaga ayaynu aadi doonaa soo dhow su'aasha ma ka faa'iidaysanaysaa buurta ugu dheer Soomaaliya magaceeda buurta ugu dheer Soomaaliya haddaan isku dayo waa Suurad buurta Suurad waa tahay aad baad u mahadsan tahay saaxiib jawaabta aad ka bixisay waa mid sax ah buurta ugu dheer Soomaaliya waa Suurad hadiyaddii ay kugu talagashay subarsan ayaynu ku siinaynaa dadaalkaaga isku daygaaga waxaan ku leeyahay saaxiib waqti wanaagsan iyo waayo qurux aad iyo aad sidoo kale waa mahadsantihiin waagaag hadiyadaadii ayaan markan kuu soo dhiibaynaa iyo saaxiibada waa tahay waxaan ku leenahay saaxiib hambalyo hadiyada iyo jawaabta aad ka bixisana waan kaaga mahad celinaynaa waqti wanaagsan sidoo kale aad iyo aad ugu faraxsanahay waan idin mahad celinaya mid kale waa isku day karaa su'aal kale diyaar u haya in la weydiiyo laakiin fursaddu waxay ahayd qofkii inuu mid ka jawaabo hadda ka faa'iidaysatid oo hadiyada ku hesho qof kale ayaa su'aasha cusub qaadanaya okay thank ay waa mahadsantahay
mar kale ramadaanul kariim daawadayaal su'aalaha kala duwan ee saaxiibada ayaynu weydiinaynaa walaal magacaaga magacayga waa laki soo dhow saaxiib laki su'aal ayaa dabcan ku weydiin doonaa iyo isku daygaaga aad baan waxaan jeclaa inaan ugu jawaabo nambarka koowaad nambarka labaad nambarka saddexaad nambarka afaraad afartaas nambar ayaa miiska inoo saaran bal nambar qabso waxaan haysaa b nambarka aad qabsanayso nambarka koowaad ilaa nambarka afaraad nambarka koowaad waa tahay nambarka koowaad wuxuu leeyahay sheeg nebigii laga soo saaray waddan afrikaan ah magaciisa waa madaxweynaha Swahiliga waa mahadsan tahay ma aadan garan soo dhow waan ku leeyahay marka hore adoo kamarada eegaya magacaaga عباس مع عثمان igu celi magaca عباس مع عثمان Abbas haye mas'aalo ka faa'iideysanay اه haye nabiga laga soo saaray qaaradda Afrika magaciisa نو موسى nabi muuse calayhi salaam waa tahay hambale ayaan ku leeyahay saaxiib waad ka jawaabtay hadiidii super saan ay kugu tala gashay ayaanu ku siinaynaa hadiidaadii ayaad gudoomaysaa markan Abbas waa buug xusuus qor ah oo aad ku qoran karto su'aalaha haddii waxbarasho aad ku jirto waxbarashada aad ku qoran karto haddii eelka taariikh ay doonayaan inay ku qortaanna way ku qori karaan super saan kugu tala gashay hambale ayaan ku leeyahay ايه waa mahadsantahay waagaag daawadayaal waxaan ku guda jirnaa barnaamijka hel hadiyad oo ay super sign markaa taabagelinaysa telefishinka dalsan ayaad kala socotaan su'aalo kala duwan ayaynu ku weydiin doonaa saaxiibada saaxiib soo dhowo magacaaga waan dhawahay magacii mahad maxamuud yacquub mahad dhallinyarada magaalada muqdisho ayaa ka mid tahay si fiican barnaamijka markii ugu horreysaa mise mar kale ayaa jirta markii ugu horreyso markii ugu horreysay diyaar waxaad u tahay dhammaan su'aalaha kala duwan ee halkan yaalla inaan ku weydiiyo haye nambarka koowaad ilaa iyo nambarka afraad ayaa inoo yaala nambarkii koowaad uu baxay nambarka labaad nambarka saddexaad nambarka afraad saddexaad qabsada nambarka saddexaad ee barnaamijka waxa uu leeyahay sida tan waxaad sheegtaa imise lugood ayay leedahay kaneecada waa su'aal cajiib haa kaneecada imise lugood ama meeqa lugood ayay leedahay afar lugood afar lugood saaxiib fursad labaad iyo mid saddexaad ayaa ku harsan haye kaneecada lix lugood leedahay lix lugood fursadda jawaabta lix lugood lix lugood ayaa ku adkaysanaysaa waa hagaag magacayga u celi mahad maxamuud yacquub mahad wuu mahadsan yahay su-aashii aan weydiino oo ahayd imisa lugood ayay kaneecada leedahay jawaabta oo saxda ah waxay tahay waa lix lugood hambali ayaan ku leeyahay mahad hadiidii lagugu talagalay ee super sign ayaynu ku guddoonsiin doonaa waa tahay mahad aad buu mahadsan yahay su-aashii aan weydiino oo ahayd imis lugood ayay kaneecada leedahay lix lugood ayay leedahay saaxiib waa mahadsan tahay hadiidii aad ku guulaysatayna waa barfuunka super sign ay kugu talagashay hambali ayaan ku leeyahay hambali walaal waa mahadsan tahay waa tahay daawadayaal ramadaanul kariim ayaynu leenahay su'aalihii kala duwanaa ee saaxiibada ayaynu ku guda jirnaa hel hadiyad su'aalahaasi oo diini iyo maadiba isugu jira dhallinyaradana bisha barakaysan ee ramadaan aynu ugu talagalnay su'aalahaas inaynu weydiinno saaxiib ayaa ila taagan marka hore magacaaga mahad ismaan xaaji mahad ku soo dhow barnaamijka hel hadiyad waa ku dhawaa walaan waa tahay laba nambar ayaa inoo haray oo ah nambarka labaad iyo nambarka afraad nambarkaa ku tijaabinayso lambarka labaad nambarka labaad ee barnaamijka waxa ay leedahay waa su'aal deeni ah waxayna u dhacaysaa sida tan
meeqa sano ayay asxaabulkahfi ay ku jireen godka meeqa sano ayay ku jireen asxaabulkahfi godka haye isku daygaaga maad 3 jeer ayaa fursad haysataa waa 63 sano 63 sano ma aadan haleelin fursadda labaad waa waa iga maqan tahay kama jawaabi karo waagaag saaxiibada kale ayaa siinaysaa fursadda waa tahay maad aad baad u mahadsan tahay waa tahay daawadayaal su-aashan oo ah su-aal markaasi aynu ugu talagalnay in saaxiibada aynu weydiino oo ah su-aal u dhacayso sheeg imise sano ama meeqa sano ayay asxaabulkaafi ay ku jireen godka jawaabta aynu raadinayno iyo weliba saaxiibkan soo dhow mar kale magacaaga magacayga waa cabdinuur aadan cilmi waa dhowahay haye cabdinuur su-aashan isku daygeeda 3 fursadood ayaa haysataa haye fursadda koowaad bismillaah haddaan isku dayo fursadda koowaad waa 100 sano fursaddaasi way ku dhinac martay fursadda labaad waxay noqonaysaa waxay godka ku jireen 6 sano markii ugu dambeysay oo saddexaad oo fursaddaada ah 7 sano saddexdii fursadoodba maadan ka jawaabin cabdinuur soo dhawaa kula saaxiib qaaliya mar kale ramadaan karim ayaanu idin leenahay daawadayaal dhinacii su'aalaha iyo saaxiibada magaalada aynu kula kulanno soo dhow magacaaga ismaaciil maxamed cali ismaaciil waa markii kugu horreysay barnaamijka su-aashan ka faa'iidaysigu baan waxaa weeye meeqa sana ay asxaabulkaafi godka ay ku jireen 3 fursadood ayaa leedahay waxay ku jireen 309 sano 309 sano magacayga igu celi ismaaciil maxamed cali ismaaciil su-aashan way ahayd meeqa sana ayay asxaabulkaafi ku jireen godka jawaabtu ismaaciil ka bixi waa mid sax ah waxayna ku jireen godka 309 sano waan kaga mahad celinaynaa hadiyad lagugu talagaala ayaynu ku guddoonsiinaynaa dadaalkaaga iyo sidaa ugu raaracisay su-aasha iyo ka faa'iidaysigeeda ismaaciil waan kaga mahad celinaynaa adaan badan walaal adaan badan bugnoodkan ka faa'iidaysiga su-aashaasna waa kaga mahad celinaynaa maasanta walaal haye aad iyo aad waagaag daawadayaal su-aashii ugu dambeysay ee barnaamijka el hadiyada ayaynu isla soo gaarnay saaxiib dhallinyaro ah ayaa ila taagan saaxiib soo dhow magacaaga waan dhawahay magacayga waa cabdimaalig cabdulaahi xuseen cabdimaalig kusoo dhow barnaamijka hel hadiyad subarsan iyo telefishinka dalsan aadan ugu dhowahay hal su-aal ayaa miiska inoo saaran waana nambarka 4 waa isku dayeysaa soo maha insha allah alla haddii idmo waagaag su-aashii waxay ku leedahay sida tan sheeg wax ay dadku ay jecel yihiin inay helaan markii ay helaanna ay ka cararaan waa nimcad ilaahay nugu galaystay waana roobka weeyaan waa tahay aad baad u mahadsan tahay isla markiiba waa iga duubta mise malaha niyo waa iqashtaa u malayna kumaanan qashine alxamdulilah maasha allah hambale ayaynu ku leenahay hadiyaddii lagugu talagalay ayaynu ku siinaynaa oo ah hadiyaddii markaasi aad ku guulaysatay saaxiib aad baad u mahadsan tahay soo dhow maasha allah waan dhawahay sidoo kale aad u mahadsantihiin dhammaantiinna waa mahadsan tahay daawadayaal guud ahaan inta ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka hel hadiyada oo ahaa barnaamij su'aalo kala duwan dhallinyarada aynu ku weydiinayna barnaamijkaasi oo ay diyaarintiisa su'aalahan uga mahad celinayo ustaad bare sheekh cabdulaahi bangaladesh anigoo xasan laka ayaa barnaamijka su'aal weydiinta idiin waday dhinaca kamaradana cabdiqaadir gacal ayuu ahaa super sen taabagelinta ayay lahayd barnaamijka mid lacayna intaynu ku kulmi doono waqtiga xiga sidaa iyo nabadgelyo
مقدشو سلام أهلها كرام، نعم أحبها مقدشو سلام. مقدشو سلام. زاحت الركام وعاشت انسجام، زاحت الركام وعاشت انسجام، شبابها بذل مقدشو فأشرق الأمل، مقدشو شبابها بذل مقدشو فأشرق الأمل، مقدشو مقدشو سلام. أرضها سلام عيشها سلام، أهلها سلام مقدشو سلام.